waxaan rabaa inaan ka raali geliyo beesha aan anagana ka dhalanay ku tiirsanahay walaalaha aan nahnay la'aantoodna aan dhaqan karin oo beesha dugudi guud ahaanba inaan ka sabayn xirna maadaama oo cariiriga iyo ishaysiga iyo waxa socda ay beesha Jibril u badan tahay waxaan doonaynaa inaan ka sabayn xirno oo raali gelin ka bixino waxyaalaha yaro dhacay oo beesha ay goon ahaanta u wada waa ka sabayn xirina iyagoo dhalinyarta aan midda xigta waxaan rabnaa beesha Jibril oo dhalinyarteeda maanta inta isku imaaday waxyaalihii go'aanka lagu gaaray waxa kamid ah in beesha dhalinyarteeda ay midnimada xoojiso beesha dhalinyarteeda inay midnimada xoojiso mar walba waxa kale oo meeshan lagu sheegay in beesha loo furo account ama loo furo sanduuq ay mar walba wax ku ridata oo iskiga qowr qabta dhalinyarta ku dhisan ku dhaqan gaar ahaan Nairobi waxa kale oo meeshan lagu sheegay in la akhrin doono Quraan akhris amaba Quraan la akhrin doono insha Allah ta'ala oo beesha akhrin doonta insha Allah ta'ala dhalinyarta hogaamin doonta iyadoo kala tashani madaxdeeda iyo odayaashii sharafta bandaay iyo culimadeeda oo kala tashani mid kale xigta beesha waxay diyaarisay dad u xil saaran oo committee loo aqaan ama arrimaha inay daadiyaan oo ilaa iyo 15 ruux ah dadkaas ayaa laga war sugayaa insha Allah ta'ala beesha arrimaheeda intaas ay ahayd maanta waa ka wada tashan insha Allah ta'ala midnimo ayaa horseedi doonta insha Allah ta'ala social media arrimaha kale laga hadlo waxa kamid ah social media in si fiican loo isticmaalo oo mar walba looga taliyo arrimaha isu keenista cidda waxa kale loogu digay dhalinyarta inay ka digtoonaadaan in lagu caayo madaxda sharafta leh iyo culimada iyo duguliyaha kiisa kale iyo ummadda kale nala degan in lagu caayo social media beesha dhalinyarteeda loogu digay marka warka intaas aan kusoo gabagabeynayna insha Allah ta'ala saas ayaan isku ognahay wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh